arbacadii la soo dhaafay ayaa la xiray xildhibaan ka tirsan maamulka Jubbaland kaas oo lagu magacaabo Axmed Taajir kadib markii baarlamaanka Jubbaland uu ka qaaday xasaanada xildhibaannimo isagoona lagu soo eedeeyay inuu qoray waraaqado been abuur ah oo lagu sheegay mooshin ka dhan ah golaha wasiirada Jubbaland. Axmed Xasan Cabdi Axmed Taajir oo xabsiga laga sii daayay ayaa shir jaraa'id qabtay waxa uuna sheegay inuu iska casilay xilka xildhibaannimo sidoo kalena waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu ka shaqeyn doono horumarka Jubbaland. anigoo ah xildhibaan Axmed Xasan Cabdi Axmed Taajir ahna xildhibaan laga soo doortay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxaan u sheegayaa shacabka aan matalo degmada Afmadow gaar ahaan guud ahaan shacabka reer Jubbaland iyo kuwa Soomaalida oo dhan kadib markaan arkay kala aragti duwanaan soo noqnoqotay iyo khilaaf soo noqnoqday iyo xarigii la ii geystay 30kii bishii koowaad 2018 waxaan halkan ka cadeynayaa inaan u tanaasulay shacabka reer Jubbaland iyo horumarkooda ayaa waxaan go'aansaday in aan iska casilo xilkii xildhibaannimo ee aan u hayay shacabka reer Jubbaland guud ahaan gaar ahaan shacabka aan ku matalayay baarlamaanka dowladda Jubbaland ee degmada Afmadow waxaan mar walba ka shaqeyn doonaa wax kasta oo horumarin kara shacabka reer Jubbaland iyo Jubbaland oo dhan mar walbana u taagnaan doono inaan kala shaqeeyo wixii wanaaga aad iyo aad u mahadsantihiin. xildhibaankan laga soo doortay ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa carabka ku dhuftay inuu jiray kala aragti duwanaansho iyo khilaaf soo noqnoqday kaas oo markii dambena sababay in 30 bishii koowaad ee sanadkan 2018 xarig loo geysto waa sidoo hadalka u dhigay. Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo.